arooskii ninkii oo noolaba la leeyahay ma aragteen travel oo ah ma habeenkii oo waxa igu dambeysay sawirada gabadh arooskii abkeenaag inta ii qabtay aas balansatay iyo niman marka maxaas dhaha marka qof Soomaali dhan horturna idin sheega hal qof oo Soomaali ma ka invite gareynay soo marka hada xaflad sameysanayo aniga iyo friendkayga iyo saaxiibadeyda cadaanka ee Kenyaati abris ku talgala balan because already Soomaaliga wallahi ma ogi hordad waxa jira caan oo inay imaadaan rabaan dad iska caadi oo invite gareeyay dadkaas oo kala rabsho ma wadin laakiin dad kale oo rabsho wada jiraan soo marka maxaa idin sameeyaa iga leexataan aragtideeda hadda ka hadlay iga leexda fariintaana loo sheer garay adreska taabta follow garay like badan hala saar Rayaan Bajaaj ayaa sheegtay ninkii gaalka ahaa in uu ka fakaday Rayaan Bajaaj oo rabtay in ay aroos dhigato ku dhigato dalka Kenya ayaa sheegtay ninkii in uu ka tagay ilaa hadda ay leedahay meel cirib iyo jaan uu dhigay Rayaan Bajaaj oo maraysa ninkii afaraad oo gaal ah in ay guursato Rayaan Bajaaj ayaa mashruuc ka dhigtay in ay guursato nimanka cadaanka ah waxayna ku aragtay lacag aad u fara badan ninkii ka guursato lacagaha bishaasi agada ayaa iska fureyso waa ina kala tagayaan waxayna keenaysaa nin kale ninkani ayay sheegtay oo dhawaanihii ku cusbaa in uu ka fakaday Rayaan Bajaaj fadlan muuqaalka la garay siina sheer garay barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino waad ku maasan tahay daawashada aad daawanaysaan barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino Rayaan Bajaaj oo ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaala social media ee caanka ka ah ayaa dhawaanihii dambe baraha bulshada haystay ayadoo guursanaysa niman cadaan ah Rayaan Bajaaj nolosha ee ku nooleed iyo hadda nolosha ee ku nooshahay waa kaaf ii kala dheeri Rayaan Bajaaj ayaa ka soo bilaabay nolosha meesha ugu hoose heer xataa waxaa la gaaray in loo qaaraamo lacag ee ku shaqeysto markii ay kala kacday Rayaan Bajaaj oo lacag aad u fara badan loo soo diray waxay u carartay dalka Kenya markii aaday waxay iska dhigtay xijaabkii ay wadatay waxaana la soo baxday dhaqan xumo aad u foolxumo badan Rayaan Bajaaj ayaana guursatay wiil Soomaali ah wiilkaasi oo Ilaahay siiyay laba caruur mataanaha Allah ha u daayay laakiin labadaasi caruur ee mataanaha iyo mustaqbalkooda aad ugu dheelaysaa hadii aan laga gaarin waa intay yar yihiin Rayaan Bajaaj la dhaqan celiyaa oo meel lagu xiraa oo dhaqan celin ah ee familkeeda ay qabsadaan laakiin Rayaan Bajaaj ayaa ka biyadiitay ninkeedii hore oo sheegay in ay joojiso waxyaabaha ay ku wado social media iyo caruurtiisa ee aad u dhibayso arrimaha ay ka wado social media maalin dhabeed ayaa la sheegay in caruurtii laga qaaday Rayaan Bajaaj laakiin haatan way soo ceshtay Rayaan Bajaaj caruurteedii oo ayadoo ku dacweysay booliiska dalka Kenya ee tiraaday caruurteeda xoog ayaa laga qaadayaa Rayaan Bajaaj ayaa joogto dal sharci ah aan laga qaadi karin caruurteeda laakiin waxaa isku dagaasay sameeyay Cabbaas oo ah ninkii hore ee Rayaan Bajaaj hore u qabay Rayaan Bajaaj muuqaal ee soo duubtay ayay ku sheegaysaa in ninkii cadaanka ahaa uu ka fakaday oo ilaa hadda ay leedahay Rayaan Bajaaj ayaa laga sugayay in ay aroos weyn ah ay ku dhigtaan dalka Kenya laakiin waxay sheegtay nasiib xumo in ay ilaa hadda ay leedahay ninkii gaalka ahaa ee rabtay in aroos weyn ah oo dhigo arooskaasi ayay sheegtay in qof Soomaali ah uu ku soo qayb gali karin laakiin ay sheegtay qofka Soomaaliya ka soo qayb galaya uu noqon doono qof hantiile ama hanti leh oo qof wanaagsan yahay oo aan fadeexeynaynin aan social media ugu fadeexeynaynin ayay tiraaday Rayaan Bajaaj Soomaalida waxay tiraaday waa dad aad u dhib badan hadii Soomaali laga bixi lahaa waa iskaga bixi lahaa nafta ay keeneen ayay ku jawaabtay Rayaan Bajaaj mar laga weydiiyay arooskaaga ma ka soo qayb galaynaa oo asxaabteeda hore dhaheen Rayaan Bajaaj nolosheeda hore ee nolosha hadda ee ku nooshahay
waa kaaf iyo kala dheeri. Rayaan Bajaaj ayaa kasoo bilaaday nolosha hoose markii ay kasoo shaqeysay bajaaj. Markii hore waxay ka shaqeyn jirtay kalluumeysiga ee badda ay ka kalluumeysan jirtay malaayga. Intay soo dabto ayay suuqa geyn jirtay, halkaasi ayay ku ganacsan jirtay. laakiin haatan markii dambe ayaana bajaaj ee qabsatay ee soo gurisay $10 ee kusoo gareysan jirtay. Markii dadka badan ay arkeen barnaamijyo laga sameeyey oo social media la keenay ayaa Rayaan Bajaaj waxaa lacag aad u fara badan $50,000 gaaraysa u soo diray qurbo-joogta ku nool dunida oo Soomaalida ah markii ay ka naxeen gabar Soomaali ah oo bajaaj ku dhaxwadayso magaalada Muqdisho. Aan wada ognahay inay tahay magaalo riskeeda aad u badan yahay, laakiin lacagtaasi waa ay ku fataashay Rayaan Bajaaj. wax alaala wax rabta ayna ku sameysay waxyaabo alla raali ka ahayn ayna ku sameysay lacagahaasi Rayaan Bajaaj. Has already declined the reverse. Can you follow up with the receipt? arooskii abkeenaag ciil inta ii qabtay aas balansatay iyo niman marka maxaas dhaha marka qof Soomaali dhan horturna idin sheega hal qof oo Soomaali ma ka invite gareynayo. soo marka hada xaflad sameysanayo aniga iyo friendkayga iyo saaxiibadeyda cadaanka ee Kenyaati abris ku talgala balan because already Soomaaliga wallahi ma ogi dad waxaa jira caan oo inay imaadaan rabaan dad iska caadi oo invite gareeyay dadkaas oo kala rabsho ma wadin laakiin dad kale oo rabsho wada jiraan. soo marka maxaa idin sameeyay has already declined the reverse. Can you follow up with the receipt? arooskii abkeenaag ciil inta ii qabtay aas balansatay iyo niman marka maxaas dhaha marka qof Soomaali dhan horturna idin sheega hal qof oo Soomaali ma ka invite gareynayo. soo marka hada xaflad sameysanayo aniga iyo friendkayga iyo saaxiibadeyda cadaanka ee Kenyaati abris ku talgala balan because already Soomaaliga wallahi ma ogi dad waxaa jira caan oo inay imaadaan rabaan dad iska caadi oo invite gareeyay dadkaas oo kala rabsho ma wadin laakiin dad kale oo rabsho wada jiraan. soo marka maxaa idin sameeyay